waxa xaqiiqo ah in ay jirto baahi aad u ballaaran oo loo qabo xeerka kufsiga baahi aad u ballaaran in loo qabo xanuun yimid inuu yahay daroogada timid inay tahay mushkilad kale timid inay tahay ma ogi laakiin sanadihii u dambeeyay 9 kuba ha u darnaadee wadanka waxaa ka dhacayay dhibaatooyin kufsi ah saqiir ma dhihi karno kufsi ilma saqiir oo laba jiro masaasad iyo tuunji wata waxyaabaha loo geystay iyo waxyaabaha dhacayaba marka waxaan dhihi karnaa xanuun baa yimid waa in baarlamaanku ka falceliyaa oo la helaa xeer muxuu ahaa arrintaas inta lagu xakameeyo dhanka kaleeto xeerkii 1968 wuxuu ahaa xeer muxuu ahaa jiro oo dalku uu leeyahay laakiin waa xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliyeed xeerkaas xilligiisii ma jirin waxaan aidiska la dhaho ma jirin kaamirooyinka la duubayo ma jirin saqiir laba jiro la kufsado ma jirin fawaaxishada tirada badan ee hadda timid sanka waxa la isku marnay daahiyada la isugu buufina oo muxuu ahaa sinada lagu badinayo ma jirin sina raali la isaga mid la isku kufsanayo arrintaas waxaan doonaynaa in xeer u helno oo laga shaqeeyo waxa soo haray buugan hadda idinka la idin qaybiyay soo haray buugan guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka xafiiskiisa waxa yaala 5 xeer baa taala xeerka koowaad waxa keentay wasiirada keentay waa la qaybiyay waan haynaa waa buuq baa ka yimid culimada qaadatay mid bay keentay kii culimadu keentay waa haynaa waxa loo dhiibay abukaata loo dhiibay kii culimada xeer yar buu ka soo sameeyay asagana waa haynaa guddiga lagu soo celiyay guddiga joogtada ayaa ku soo celiyay guddigeena anaguna waxbaan ka bedelnay 50 qodob baan ka dhignay asagana waa haynaa guddoonka markaan u geynay waa la laalay xeerkaas mar kale waxa lagu celiyay abukaatihi kan abukaatiha ayaa soo sameeyay guddigeena anaga shaqadeena aan qabanayo wixii aan qabanayo halkan ay taala maadaama ay jirto baahi loo qabo xeerkan waxaan codsanaynaa baarlamaanka ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inaan xeer sameeyno oo nagu gacan siiyaan guddoonkan waxaan ka codsanaynaa xuquuqda guddiga xuquuqul insaanka uu xaq u leeyahay iyo baarlamaankuba inay diyaariyaan xeer inuu ogolaado billahi tawfiiq assalamu alaykum gudoomiye ku xigeen sale guud ahaan howlwadeennada golaha iyo bahda warbaahinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu guddoon ajandaha maanta waxaan ku diidannahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ee ku dhaartay ilaalinta diinta islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalintiisa halkan waxaa ku qoran oo ajanda noo ah mashruuca dambiyada galmada mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajanda golaha shacabka looga soo dhigo ee annaga oo intaasoo culimo iyo intaasoo garaasho iyo intii ummadda Soomaaliyeed ee ayada ay fiirsanaysay in looga soo dhigo ajanda galmo in laga hadlo waa waxaan qabanin baarlamaanka Soomaaliyeedna aanan u cuntamin xataa ma uusan soo raacinin qofkii soo diyaariyay galmada sharci darrada ah xataa kuma uusan darin ama galmada ka hor imaanayso shariicada islaamka ma uusan dhihin wuxuu yiri galmada ayuu ku gaabsaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala si asluubaysan ayuu ooga hadlay diinta islaamkan ay u sheegtay labada isqabta xataa qaabkay iskugu tagayaan diinta way sheegtay nisaakum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa ayada ee ugu tarax tagta way haddana haweenkiina u taga saad ugu tagaysaan waa beertiinoo kale haddana wax bay mamnuucday oo diinta ay qeexday annaga waxay diinteena noo sheegin oo ka qurux badan oo annaga meel laga soo guuriyey oo ay u turjuman tahay maartay dad kale oo bilaa xataa diin ah inay yihiin laga yaabo in la soo qaato oo dad muslim ah
oo annaga haddee oo aan ashhaadano oo aan rumaysannahay kitaabkaasi munazalka ah mudane guddoomiye nooma cuntanto kaanayna ka bilaabanaysaa doon galmo way wejiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaadana ka jiro nin aroosa naag aroosta balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa annaga ximaayatan liislaamina wa diinina wa iimaanina wa taqaaliidina ayaan waxaan ku diidnay ajandahan in aan ka doodno hallarna laga noqo meeshii laga keenay lagu celiyo habixin dalxa habixin waa mahadsan tahay waxaan rabaa marka waxa aad rabto inaad sheegto sida aad wax u rabto saasaan u rabaa dheh waa mahadsan tahay guddoomiye sidaa wax u rabto u sheeg horta ereyga galmada waa inuu meesha ka baxa doodna ma galo oo asaga waxaan rabaa aastaysan wax yar dalxa mashruuca waxaan dhihi lahaa mashruuca faldambiyeed mashruuca fiir waxaan dhihi lahaa aniga mashruuca xadgudubka ku ah ma garatay shareecada islaamka maasan tahay waxaa gebigiisaba horta meel laga galo iyo meel laga saxo male waa bataatan ba in la celiyaa waa maasanta dalxa khiyaarta xildhibaanada halkaa fadhiyana dhammaantooda way mahadsan yihiin dhegaysiga wanaagsan guddoomiye aniga waxaan u soo istaagay waxa waaye in sharci ku-sheega kan inuu soo gaaro baarlamaanka gudihiisa maba ahaynba idinka waxaad tihiin guddoonka waxaad tihiin saddan maniican ayaa waxaad u tihiin baarlamaanka waxaa la rabaa waxaan baarlamaanka u cuntamin biyahooda inay idinka ina ka moostaan baa la rabaa haddii biyihii calaqubba iyo wasakh iyo wax walba bulaacad u wata aada soo daysaan guddoomiye ilaahay aan ka baqno maxaa dhacaya kan waa bulaacad sharci ma ah aniga waxaan soo jeedinayaa in ajendahan la keenay dood ma mudna in la saxbiyo kufsi wuxuu yahay xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayuu ku yaallaa kufsi wax la yidhaahdo xeerka ciqaabta soomaaliyeed uu ku yaallaa kutubada islaamka ayaa sheegtay wax meeshaas looga shidaal qaadan karo sida loolama tacaamulayo hadda in laga soo saaro wax cusub oo haddana magac kale loo yeelo kasii faaxisho badan kasii faaxisho badan magaceeda la siiyo waa nasiib darro guddoomiye anoo ixtiraam badan idiin haaya golahanna ixtiraam badan u haaya waxaan rabaa sumcaddayna inaanan ku dheelin waanana dhegaysanayaa idaacadaha baxaya saxaafadihiia fadhiya barlamaankii soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajando galmo ah la soo agdhigay dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa baarlamaanka annagoo marka horeba wax fiican aanay bulshada naga aaminsanayn haddana kan haddaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa maanta warkeeda u gaaro maxaa soo baxaya aniga waxaan leeyahay ajendada guddoon waxaan codsanayaa in ajendaha aada geliso cod ma aqbalnay mise diidnay
intaasaan kaa rabaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horeysa waxaan kaa codsanayaa inaad isha mariso qodobka saddexaad ee dastuurka muxuu ahaye hadda aan gacanta ku hayo wuxuu dhigayaa wax allaale wixii shareecada islaamka hor imaanaya oo dastuurka laguma qori karo. qodobka saddexaad ee dastuurka wuxuu leeyahay qodobka saddexaad ee dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah quraanka kariimka. waa hagaag gabdhaha la koobsada iyo dembiyada faldembiyeedyada dalkeena ka dhaca faldembiyeed aan la qaadan sharcigiisa aan la qaadan ma laha. kii ugu adkaa gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalkacyo ka dhacay waad ogeedeen wiilashii muxuu ahaayeen dhibkaas geystay gidigood qisqaasaa lagu xukumay waa la laayay. marka aniga waxaan qabaa gudoomiye sharcigan muxuu ahaay ajandihiisa hadda aan diidni waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa waay. waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa lamidka aba shareecada islaamka ayaa qeexaysa muxuu ahaay oo ku qoran tahay. marka in maanta ajandaha aan diidno aadan ugu faraxsanahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد mudane gudoomiye waa mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka dhammaan baarlamaanka sharafta walaalayaal wax yar aan isdhegaysano dadka hadlaya ha dhegaysteen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. waxaan rabnaa diin ahaan inaan uga hadalno sharcigan iyo dastuurka. qofku marka waxa uu jahli ka yahana waxaa loo baahanya ilaahay waxau leeyahay su-aala dadka aqoonta u leh. waxa uu aqoonta u leeyahana hadda waxaan rabaa inuu ku dhaqmo. walaalayaal horta dalka sharci la-aan maaha. sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo koomkan loogu talagalay in lagu dhaqo culuwihi wa suflihi ayaa yaala. kaliya fulintiyaa naga qaldan. wax lagu fulin lahay maahana sharci la-aani ma jirto. walaalayaal waxaan meeshaan aniga xalay markii aan arkay shalay galab markii aan goor gaaba baa la soo diray waxaan qoray aragtidaydii buux baan u diray. buux baan naga soo gaaray buux baan u diray aragtidaydii wuxuuna iigu soo jawaabay golaha iska leh. macnaha magaca inaan hagaajiyaan doonaya aragtidayda. weliba waa idiin sheegayaa fartaa waxay iga dhacday madaxweynaha koonfur galbeed ayuu gaaray inta iga dhacday. yaa soo qoray uu yidhi aniga buuxiyaan moodaa adaa soo qoray aan ku idhi ma aanan fiirin. ka bacdi aan fiiriyey waa idiin sheegaya waxaan u diray in laga bedelo dhinaca galmada oo la yidhaahdo dembiyada ka dhasha sinada iyo kufsiga. sidaasaan u diray mobilkayga ku jirtaa. walaalayaal waa sida uu u sheegay horta guddoomiyu hadda ka hor meeshaan guddoomiye mudday halkaan oo kaga hadlay naloo keeni maayo haddaad xusiisataan halkaan kaga hadlay guddoomiye soo saas maahayn naloo keeni maayo ku yidhi. sharcigana waa ilaalintiisa dadkan waxay meesha u fadhiyaan inta naga maqan ummaddii bay matelayaan. wixii ummadda dhibaato ku ahna inay ka hadlaan waay. wixii ummadda dani ugu jirtana waa inay ayagu ka shaqeeyaan oo soo jeediyaan. marka horta marka u horeyda sharci la-aan ma jirto. sharciga waa lagu dhaqmayn maahana ilaahay subxaanahu wa tacaala markii oo kufsigu awood oo ku dhacana aayadda qur-aanka inama jazaa'u aladiina yuxaaribu allaha warasuuluhu yascuuna fi l-ardi fasaadan aayaddaasaa u daliilaya qofkii aqoon u lahaa ka raadiyo markuu xoog ku dhaco. markuu ku dhaco ishabid
الزاني والثانية فجلدوا كل واحد منهما الجلدة كاسا ودليلا مركو إصابت كل نوع أو لغة سلقلوا قرآن أحاديث النبي أنه أول شيء عليه الصلاة والسلام زناها مركة ولا رجال وها حد الله يحضر دباتو كتاجنتهي وزناها قصب ككل هذا أو نفط كل بعضه أو ضدك حد أي بارك تسحب واستعمال رجال أنا مركة واحد ما يشوف يستاجن ما دام أرض مسلم النهي دينتنا حنيفة هاد أي نهض الله لا نرى الربا واحد كدولة أهان كدولة أهان ما دام أنك شرعك بيسك الله وشرع إسلام كان يكون ورنته والدستور يكون ورنته قلب كلمات دينتا دولتنا ودينتا إسلامك wax ka hor imaanaya maqaasidda islaamka dalka lagu wasaaqo maqaasiddu waxa waaye doonista shariicada islaamka waxa ay ku shaqeynayso taas waa aan qaadano waa dastuurka waxyaalaha marka dariiqa loo marayo ijraa'ada la yiraahdo dariiqa loo marayo dariiqaas waxa laga hadlayaa xukunkuna waa qofku markuu dambiga ku cadaado ka bacdi oo maxkamada oo tagu dhacaa qofka tuunsanaha waa eedeysane ee dambiila maahan saad waqtiga kana way ku taalaa waxaan rabaa marka walaalayaal sharcigan aniga waxaan ka mid ahay culimadii dadkii loo diray culimada oo loo dhaxlay culimada Soomaaliyeed aleele ka soo jawaaba sharcigan aniga marka ma ogi kii culimada soo tasdiiqday inuu yahay iyo mid dhinac ku yimid inuu yahay annaga marka ma ahayn faction ummad gooniga meel joogto ma ahayn waxaan nahay ummadii Soomaaliyeed ka mid ah hadduu yahay marka xeerkana loo keenay xeerka culimadu ay soo tasdiiqday waa ogaanaynaa waa soo ogaanaynaa waana isla kaashanaynaa magacan inuu qaldan yahay kaasi waa sax waay magacu inuu qaldan yahay waa sax meesha lagu soo qoray waa la toosinaaho hadda waa maaragtay magacyo badan aan la sheegay maya guddiga anu kama mid maahiba guddiga kama mid maahiba waxaa jirta marka madana guddoomiye horta waxay ahayd asal guddiga joogtada ahay ahayd in la soo marsiiyo hadda ka hor inaan diidno waa og tahay guddiga joogtada in maaragtay la soo marsiiyo waxa hadda meesha ka dhaca ayagaa soo maaragtay soo hagaaji lahay aniga marka aragtidaydaan rabaa diin ahaanaan rabaa inaan idinla hadlo walaalayaal diinta ilaahay marka la sheegaayo qaylo kuma fiicnayo buluq waxay ku fiican tahay in la dhageysto ilaahay wuxuu leeyahay wa idha qira'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun markii diin la sheegay ha qaylina dhageysta xataa akhrinta la akhrina haddaadan adigu aadan aqoonin raxmadda ku dagayda dhinacay kaa gaaraysaa annaga diin la'aano nama haydo sharci la'aano nama haydo laakiin fulintiisa ayaa waxay u baahan tahay inaan dabagalno waxa walba fulinta inaan dabagalno waxaad kala ogtihiin marka kitaabka ilaahay wuxuu sheegaa rajmi wuxuu sheegaa gacan la gooyo wuxuu sheegaa karbaash waxaasoo dhan wax kale aan ugu gudban waa ogtihiin aada ogtihiin waxaa la rabaa marka soomaalidu waxay tidhaahdaa see xeega loo xagtaa ilkana ku nabad galaan sideen xeerkaan sharci uga dhignaa ummaddanada anfacaya dalkanaga anfacaya aanana ku dambaabayn taasi waxay rabtaa marka in looga shaqeeyo asluub diiniya anaga kaliya inaan meesha taagnaada ma rabo dad badan oo aqoonyahan oo ahlu diinha meesha jooga oo wax ka dhigi doona waxaan qabaa madana guddoomiye sharcigan in guddiga ka soo shaqeeyey iyo guddiga joogtada iyo culimada ku jirta baarlamaankan inay dib ula noqdaan dib inay ula noqdaan la soo hagaajiyo asagoo ka bedelan oo dadka u laqsami kara inaan ku soo celinno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu